muuqaalkeena maanta waxaan kaga sheekeyn doonaa Venezuela dal ku dhaca Latin America lagana hadlo luqadda Isbaanishka duulaanka Mareykanka ee Venezuela maraakiibta iyo hubka xukuumadda ee Mareykanka oo taagan meel u dhow biyaha Venezuela konton sano ka hor Venezuela waxa ay Sacuudi Arabiya dhacday Latin America waxa ay ahayd dal dhaqaale fiican leh gawaaridii ugu dambeeyay dunida dhismayaashii ugu casrisanay dunida laga dhiso waxay ahayd riyada dadka degan Latin America iyo Canada iyo Europe meel ay ku hamiyaan inay aadaan ka shaqeystaan fursado nololeed ay ka abuurtaan laakiin si kadis hal mar ayaa burbur ku yimid dhaqaalihii iyo noloshii ka jirtay Venezuela oo directly waxay soo bedeshay gaajo iyo saboolnimo laakiin dawladda oo isku dayday inay dalka badbaadiso dadkana badbaadiso ayaa waxay soo daawacday lacag xoog badan laakiin ma aysan badbaadinin dhaqaalihii dalka Venezuela waxa ay gashay xaalad koronto la'aan biyo la'aan ah gawaaridii oo safaf dhaadheer ugu jira sidii shidaal u heli lahaayeen laga yaabay mararka qaar inay gawaarida safafka 2 maalin ku jiraan si ay u soo helaan shidaal taariikhda waa isqortaay dalkii loo soo haajiri jiray oo shaqo laga soo doonan jiray oo dadkiisu safaf dhaadheer u galay sida dalka uga bixi lahaayeen muhaajiriin u naqal lahaayeen si ay u helaan meel kaga roon nolosha maanta Venezuela ay ku jirto madaxweynahooda Nicolas Maduro dawladda Mareykanka maanta waxay dul dhigtay $50 milyan si loo soo qabto ama qofkii sheegtay meesha uu ku sugan yahay sidaas darteed Mareykanka oo isu diyaariyay inuu duulaan ku qaado dalka Venezuela meesha looga soo saaro nidaamka Nicolas Maduro sheekada Venezuela waa sheeko cajiib ah dal haysta kaydka shidaal ee caalamka ugu weyn hadana dadkiisa ay yihiin kuwa ka gaajaysan ayaa muuqaalkan si fiican kaga sheekeyn doonaa okay Venezuela markii intaan gelin qisadeedan dambe markii hore maxay ahayd boqolaal sano ka hor Venezuela waxaa degi jiray qowmiyad Caribbean oo Latin America dadka asaliga u ah loogu imaado qowmiyadaha ay ahaayeen luqada gaari diimo gaari ayaga lahaayeen ay jirtay laakiin 150 sano la soo dhaafay meesha waxaa qabsaday gumeystihii Isbaanishka iyo Yurubiyaanka ayaa meesha qabsadeen qowmiyadii Caribbean iyo dadkii asaliga ahaana waxay sameeyeen way baabi'iyeen oo qaarkoodna kaymaha Amazon hore u galeen inta soo hartayna waxa gurguursaday Isbaanishkii oo saasi meesha ku deegaamoobeen marka Isbaanishku markaas markuu wadalka qabsaday muhiim uma arkeen inay Venezuela tahay sida hadda Peru kale ay dahab iyo fida ay ka heleen iyo Colombia ay dahab ka heleen wax macaadin ah muhiim ah ay ka helaan way waayeen marka dal muhiim ah uma arkeen marka waxaa jirtay bilowgii qarnigii 19aad waxaa ka soo ifbaxay ururo hubeysan oo la dagaalamay gumeystaha markii dambana way ku guuleysteen oo meesha way ka saareen gumeystihii meesha waxay ka abuureen jamhuuriyadda Colombia ee weyn muddo yar kadib jamhuuriyadda weyneed ee Colombia ay ku magacaabeen dawladda yaryar ee u kala baxday marka waxaa ka soo dhex baxay Venezuela dalkan la dhahaa markaas kadib Venezuela 1914 waxay sameysay waxay ogaatay calashaan oo la soo qaaday inay Venezuela leedahay kayd shidaal 1920 ilaa 30 markay ahaydna waxaa la ogaaday inay haysato kaydka shidaal ee caalamka ugu weyn Venezuela oo la dhacday warka farxad la ayaa tiri soo dhawaada saaxiibayaal meeqa barmiil oo shidaal ah ayaa u baahan tihiin oo idinka iibina bye faqrinimo soo dhawaad hodantinimo dawladda ayaa bilowday marka inay dhaqaalaha u qaybiso shacabka oo ay dhisto dhismayaasha iyo dhismayaal casri ah kaasino si dadka ay uga farxiso kuntumeeyadii waa 1950kii waxa ay gashay horumar weyn oo xagga dhismaha ah waxay noqotay Venezuela riyada dal walba uu korriyoodo laakiin maxaa ka dambeeyay waxaa dhacday in dagaalkii bariga dhexe ka dhacay oo 6 Oktoobar 1973 waa dagaalkii 6 Oktoobar ee Syria Masar iyo Israa'iil dhex maray ay Masarna ku rabtay in Siinaa ay ku soo xoreysata halka Syriana rabtay ee buuraha Golan Heights waxa uu keenay isbedel xagga shidaalka dhaqaalihi adduunka inuu ku keeno oo waa dagaalka Carabi ku midowda laguna jabiyay Sahyuuniyadii waxaa xasuus la markii in Sacuudi Arabiya ay go'aan qaadatay ahay inay shidaalka ka jaran doonto dalalka gadaal ka taagnaayeen reer galbeedka ahaayeen ee gadaal ka taagnaayeen Israa'iil go'aankaas wuxuu ka in qiimihii petroolka markaas barmiilkii maray $12 uu hal mar ku dhufto $50 Venezuela waxay u aragtay fursad cajiib ah oo mar la arag ah laakiin jaaniskeedii kama faa'iideysanin oo il dhaqaale labaad oo wadanka bari hadii petroolka qiimihiisa isbedel ku yimaado ay il dhaqaale ku badbaadaan Venezuela ma aysan samaysanin oo dhaqaalahooda kaliya waxa uu ku taagnaa labada lugood waxa uu ku taagnaa kaliya waxa uu ahaa petroolka waxa dhacday marka in mar kale maxaa la yiraahdaa dagaalkii labaad ee bariga dhexe ka dhacay 1980kii waa dagaalkii Iran iyo Iraq Khomeini Saddam Hussein dhex maray mar labaad wuxuu isbedel ku keenay qiimihii shidaalka ee dunida sababtoo ah labada wadan waxay kamid ahaayeen shanta wadan ee ugu soo saarka badnaa shidaalka barigaas marka shanta wadan oo dagaalka ugu soo saarka badnaa shidaalka laba kamid ah isdagaasho waxa waaya qiimaha petroolka uu isbedelay oo mar labaad ayuu wuxuu bilaabay inuu samada galo laakiin waxaa dhacday 1986 in Saudi Arabia ay ku dhawaaqday in maalintii ay soo saari doonto 500 oo barmiil
oo shidaal ah inay iib gey doonto oo qiimihii maraya $80 ilaa $100 barmiilkii maraya hal mar uu gaaray inuu imaado $10 waa qiimo dhac keeni kara in dalal badan dhaqaalahooda uu dhulka galay sida Venezuela oo kale oo dhaqaalaheedii uu dhulka galay Venezuela marna mayso ku fikirayeen in dalal dhaca bariga dhexe ee Carabeed inay qiimahoodii ama markaas Venezuela qiimihii dunida markaas ay ka taagnaayeen in dhulka la geli doonaan maysan Venezuela sii qiyaasanin sideetanmeeyadii marka waxaa dhacday in hoos u dhac xoogan ku yimaado qiimihii shidaalka dunida uu hoos u dhac ku yimaado 95% miisaaniyadda dawladdan waxay ka soo gashaa dhaqaalaha waa shidaalka 70% dawladda dhanba waxay ku tiirsan tahay waa barmiilkii iyo shidaalka kaliya halkii markuu xumaaday dawladdu waxay isku dayday marka inay soo dhex gasho oo dalka ay badbaadiso marka dawladdu waxay soo daabacday lacag xoog badan mar walba lacag badan la soo daabacana waa mar walba qiimaha lacagta uu hoos u dhaco mar walba qiimaha lacagta uu hoos u dhacayna waa mar walba asxaarta ay sarkac ku yimaado faqri xun ayaa markaas lagu hala gashay 3 meelood 2 meel waa 1998 dadka Venezuela waxay ahaayeen dad dilinta faqriga ka hooseeyo taxta faqri dadka la ay ahaayeen shacabka Venezuela oo u arkay markaas inay xaaladoodu ku xun tahay ayaa isku day in si dadka u badbaadiyaan inay dawladda ridaan kacdoono ayay sameeyeen oo dawladda xilka ay kaga tuurayeen markaas kacdoonkaas waxa ku soo ifbaxan in la yiraahdo Hugo Chavez waa ninka Venezuela caanka ka noqday iyo Latin America dhan loo yaqaan aabihi Venezuela ninka loo bixiyay ayaa kacdoonkaas ku soo caan baxay ilaa iyo markii dambe oo Hugo Chavez madaxweyne ka noqday Hugo Chavez markii hore wuxuu ahaa askari yar oo ka tirsan da'diisan aad u yareed oo ka tirsan ciidamada laakiin markii kacdoonada bilowdeen wuxuu noqday il shacabka ay u arkaan rajo iyo hiddiilo labaad wuuna u noqday shacabkii oo 1998 ay wuxuu ku soo baxay xilka madaxweynenimada ee Venezuela ayaa ku soo baxay Hugo Chavez ilaa iyo 2008 ayuu dalkaas ka taliyay qiimihii shidaalka dunida jaanisyo badan oo ninkaas reer Venezuela waxay ku tilmaamaan aabihii nasiibka inuu yahay shidaalkii oo markaas $10 taagnaa ayaa hal mar samada galay oo wuxuu tagay barmiilkii $150 dalka dhaqaalihiisii wuu soo hagaagay musuqmaasuqii dalka ka jirayna waxa waaye isbedel ayuu ku keenay laakiin waxay dhacday in 2013 in uu xanuunsaday uu aaday wadanka la yiraahdo Cuba ninka wuxuu ahaa nin shuuci oo ahaa Hugo Chavez nin shuuci oo ahaa marka Cuba waxa ka tiriyahay nin kale oo shuuci ah Fidel Castro xaggaas ayuu aaday marka wadanka wuxuu kaga tagay ninka hadda xilka haya ee loo yaqaan Nicolas Maduro oo dawladda Mareykanka ee madaxiisa dul dhigtay $50 milyan ninkii ayaa ilaa maanta dalka ka taliya halka madaxweyne labaad ay wadanka sameystay oo wadanka laba u kala jaba madaxweyne labaad ay sameysteen oo dhalinyaro ah oo iqwaam Kuwait oo nin la dhahay ay sameysteen wadankii oo Mareykan hadda maanta wuxuu ku yahay Mareykan uu jooga ilaa 50 dawladood adduunka ayaa aqoonsatay mid xilkiisii iyo madaxweynimadiisa laakiin nin wadankii ku laaban karo oo wadankii wax u qaban kara ma ahan Nicolas Maduro nin siyaasadda u firfircoon oo xagga siyaasadda ku fiican ma ahan asagana oo markii hore nin wax bartana ma ahayn laakiin wuxuu ahaa nin wadannimada bis ay ku weyn tahay marka wadankan waa ku hogaami waayay wadaniga jacayl kaliya maadaama khibrad hore uusan lahayn qof wax bartayna uusan ahaynin dawladii dunidana ay mucaarad ku yihiin asagana uu yahay nin Mareykanka aan la toosi karin muuqaalkan aad u dheer laakiin waxa isku dayay inaan saa ugu macquulsan u soo gaabi karin oo soo gaabiyo ayaa isku dayay marka intaan ku eegaya muuqaalka waxaan ku leeyahay hada muuqaalkan ka hesho waxaan ku leeyahay subscribe like waxa gaada hadaan ka helin qaybta comment-ga noogu reeb ma ka helin muuqaalka kale noo soo sameeyo dhaha waa idinkaas bye bye